qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gado ayaa waxa kala goodoomiyay ururka al-shabaab sida Garbaharey, Buurdhuubo, Ceelcadde iyo degmada Baardheere kuwaasi oo dhamaantood ay adkaatay in la iskaga kala goosho waxaana iminka ka bilowday deegaanadaasi howlgal ka dhan ah ururka al-shabaab kuwaasi oo ay fulinayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland isla markaana ay ku doonayaan in ay ka sifeeyaan dhamaan gobolka Gado dagaalyahanada ururka al-shabaab waxaana dhaqdhaqaaqyo xoogan ay iminka ka bilowdeen degmada Balad Xaawe, Garbaharey, Buurdhuubo, Baardheere, Ceelwaaq, Ceelcadde, Luuqanaana iyo degmada Doolow iyadoo gabi ahaanba degmooyinkaasi ay soo buuxdhaafiyeen ciidamo aad u tiro badan isla markaana wato gaadiidka dagaalka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq oo ku magac dheer Alqaadi ayaa telefishinka caalamiga bulsho uga warbixiyay sida howlgalkan uu ku socdo waxaan rabnaa inaan ka hadlo hadii Ilaahay idmo howlgallada ka bilowday qayb ka mid ah gobolka Gado oo aad ka warqabteen in muddooyinkii ugu dambeeyay lagu baaqayo in howlgallo degdeg ah la bilaabi doono madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan howlgalladaas oo dhammaan guud ahaan gobolada Jubbaland lagu nadiifinayo oo looga saarayo cadawga argagixisada al-shabaab maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka bilowdeen howlgalladaas gobolka Gado qayb ka mid ah sida Buurdhuubo eeriyadeeda ayuu ka bilowday howlgalka ugu weyn howlgalladaas oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland qaybahooda kala duwan iyo ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ka howlgalayo gaar ahaan Ethiopia howlgalladaas shalay iyo maalmahanba qayb ka mid ah gobolka ay socdeen wax khasaaro ilaa haddadan ciidamada soo gaarayna ma ay jiraan markii laga reebo deegaanka Buurdhuubo meel u dhow markii ciidamada howlgallada ay ka sameynayeen miinooyinkii ay aasayeen cadawga argixisada ah howlgallada maalmahan si tooska ah uga socon doono eriyada Garbaharey iyo Buurdhuubo oo dhan ba insha Allah ta'ala ay ka socon doonaan iyo waliba dhanka Baardheere oo iyadana ciidamada howlgalladaas ay ka wadaan ilaa maalmahan waxay ka socon doontaa area jungle iyo ilaa Tarako iyo maaragtay Alaxereed iyo maaragtay Daar howlahaas baan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay sii socon doonaan howlgalkan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu hore u shaaciyay in bisha 7 ee sanadkan ay howlgal ka bilaabi doonaan dhammaan gobolada maamulka Jubbaland ee iminka gacanta ku hayaan ururka al-shabaab Zakriya Cabdiqaadir Karazai TV-ga caalamiga bulsho magaalada Kismaayo